بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونكسن دمانتين بأمير البواد دنيا كجوكتان waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka maxaa cusub caalamka ee aad ka daawataan Qudus News iyo Mogol Media barnaamijka qodobada ku daawan doontaan waxa kamid ah Ukraine oo laf dhuun gashay ku noqotay shidaalkii dawladda wadanka Ruushka sidee wax u jiraan warbixin xasaasi ah weeye barnaamijka ayaad ku daawan doontaan hadii alla ka dhigo qodobada kale barnaamijka ku daawan doontaan waxa kamid ah dawladda wadanka Ruushka ama militariga wadanka Ruushka oo weeraray mid kamid ah maraakiib ay leedahay dawladda wadanka Shiinaha belo maxaa dhacay sidee wax u dhaceen goormay dhaceen xaalku suu yahay barnaamijka ayaad ku daawan doontaan daawadayaal hadii alla ka dhigo waa qodob xasaasi ah hawday madarnaanin qodobada kale ee barnaamijka ku daawan doontaan waxa kamid ah maamulka Somaliland oo Ilaahay ka baryaya dhulka in uu la jaro sidee wax u jiraan balaayada maxay tahay barnaamijka ayaad ku daawan doontaan hadii alla ka dhigo qodobada kale ee barnaamijka ku daawan doontaan waxa kamid ah dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya oo qarka u saaran in xabsiga loo tahaabo warheed qodobada caawa xasaasi midba kale waa ka daran yahay hay waday madarnaanina sidee wax u jiraan barnaamijka ayaad ku daawan doontaan hadii alla ka dhigo maxay tahay warbixinta xasaasiga ah ee uu bixiyay mid kamid ah saraakiishii hore waliba rag sarsare kamid aha mukhaabaraadka maamulka shuftada ah gaar ahaan hay'adda Mossad la yiraahdo laakiin ka dhana waliba ama waxa uu ka hadlayaa aan ku soo koobay barnaamijka nuclearka wadanka Iran warbixin xasaasi ah ayuu sii daayay maxay ula jeedaa waxaan sidee u dhacayaan barnaamijka ayaad ku daawan doontaan hadii alla ka dhigo qodobadaasi qodobo kale oo caalamka iyo wixii soo kordha ayaan idinku la wadaagi doonaa hadii uu ogolaado Allaha weyn ee waaxidka ee aan wadar u baahanayn aad maasintii waxaan ka mahad celinayaa saaxiibada sida weyn noola socda aragtidooda la wadaaga aad uga faraxsanahay soo dhawaada oo muuqaalka share gareeya gaarsii saaxiibadiina aragtidiina la wadaaga mar kale gobonimo ku noolaado hagaag sidoo warinayo telefishinka Al Jazeera waxa jirta qodobka ugu horeeya barnaamijka waxa jirta dayax gacmeed ayaa la dulgeeyay caalamka dayax gacmeed baa shaqeynaya dawladda teknolojiyad kasta oo iyadu ay lahaato mararka qaar way ka xusbaxaysa mid kale da Ruushku waa 17 milyan oo kiiloomitir away marka hada Ukraine lagu daro waaba suurtagal hataa inuu magaranaysa 18 milyan oo kiiloomitir inuu noqdo maxaa yeelay 45 wax ka badan wadanka Ukraine ayuu imika la sii tagayba marka kuwana haduu ku sii socda waaga marka muuqaal dayax gacmeed ay sawir la qaaday ayaa waxa ka muuqanaya dhammaan goobihii shidaalka ee qasnada ahaa ama taangiyada shidaalka ee dawladda wadanka Ruushka ay ku tashanaysay oo 10 kamid ah ayaa daakum ay ka dhigeen diyaaradaha droneska ee dawladda wadanka Ukraine waxa la yahay Ruushka hadda Ukraine waa galay oo wadankii waa qabsaday inta badan dhulkii waa burburiyay oo ciidanka Ukraine hadda awood badan oo isku difaacaan male laakiin balaayo waxay ka dhacday wax la yiraahdo diyaarado drones ah oo aan raadaal qabanayn oo meel loo raacaan lahayn oo 24 saacadna weerar kuga ah bal ee Ukraine hadda waxay maraysaa in gobolada Ruushka iska daa meel kale gobolkan horta la yiraahdo Belgorod oo xuduud ku yaala isagu macaamiil bay ka dhigatayba laakiin waxay maraysaa in ay duqeyso ilaa iyo meelaha ugu dhow caasimadda wadanka Ruushka ee Moscow la yiraahdo inay duqeyso ayay maraysaa marka dawladda wadanka Ruushka dhulkii waa qabsatay oo dhul badan gacanta waa ku dhigtay waa sax laakiin diyaaradii droneska kale aad ugu iska celi markaasa waliba warshado badan oo diyaaradahaas soo saara ayaa laga sameeyay gudaha wadanka Ukraine mushkiladda marka Ruushka haysta waxay tahay war waxaan sidee looga hortagaa hadda dawladda wadanka Ruushka shirkadihiisa teknolojiyada waxay ku guda jiraan qaarna ay soo saareen taangi ka hortagaya diyaaradaha droneska ah waayo diyaaradahan caalamka dagaalka qarniga 21aad aktarada jilaysa waxa weeye waa diyaaradaha droneska ah iyo hadba sida loo kala farsameeyo weeye marka Al Jazeera waxay tabinaysaa marka in goobihii shidaalka lagu keedin jiray ay isticmaali jireen militariga wadanka Ruushka 10 kamid ah daakum in laga dhigay laakiin dawladda wadanka Ruushku faafahin dheeraad arintaas kama bixin waxaag qodobka kale ee barnaamijka aan ku soo qaadan doono waxa kamid hadii alla ka dhigo waa qodob xasaasi ah ma rumaysanaysaa in dawladda wadanka Ruushka ciidankeedu ay weerareen mid kamid ah maraakiibta ay leedahay ama maraakiibta dawladda wadanka Shiinaha dabcan de Shiinaha iyo Ruushku sida muuqata mid kamid ah maraakiibta dawladda wadanka Shiinaha oo wadanka Ukraine ku sii socda dabcan Ukraine waa la socotaan bad iyo cir iyo dhul intaba Ruushka ayaa ka go'doomiyay markabkaasi wuxuu ku socday dekada la yiraahdo Odessa oo koonfurta wadanka Ukraine ku taala waana dekada kaliya ee ka soo hartay dhulkii ballaarnaa ee Ukraine ee dekadaha tirada badan lahaa marka
markabka markaas ku sii socday diyaaradaha droniska ruushka iyagana ma hubsane nagtay ka saareen ma aha markabkii oo holcaya ayaa hadda badda madow fadhiya sida qaar ka mid ah warbaahintu ay tilmaamayaan marka laakiin arrintan waxa la warinayaa qaab shil ah inay tahay faahfaahin dheeraad lama bixin markabka waxa uu watay calanka dawladda wadanka Shiinaha miyuu watay mid kale hadda علاماتي وابلغو وريريب علان marka iska socdo badda maray wax duu doon wuxuu iska suurinaya calanka wadanka Shiinaha wuxuu iska suurinaya calanka wadanka Ruushka wuxuu iska suurinaya haduu doon hadda calanka wadanka Soomaaliya hadii de magaranayso Soomaaliya calankeeda la oga laakiin dawaaniye insha Allah biidin Ilaahay taala dalkan oo xoog yeeshay baan ayaan meetaalaya de moogtahay marka waxa la leeyahay ilaa iyo hadda dawladda wadanka Ruushka faahfaahin badan kama bixin waliba arinta waxay imaanaysaa iyadoo dhowrka maalin soo socda arbacada uu madaxweynaha wadanka Ruushka Vladimir Putin uu ku wajahan yahay caasimada wadanka la yiraahdo ay wadanka Shiinaha gaar ahaan magaalada Beijing laakiin daawada fahan tan kama dhiganada in dawladda wadanka Mareykanka dawladda wadanka Shiinaha iyo Ruushku uu khilaaf soo dhaxgalay maya waxaasi kama dhigna arinta markabkan waa la baaray xagee u socoteen baa la oranayaa iyaguna dabcan inay ku khaldameen ayaan filayaa tan kale marar qaarada suuragal waay markabkan telefishinka Al Jazeera ayaa warinaya in xitaa isagu laftirkiisu uu calanka dawladda wadanka Shiinaha iska saara waa dhici kartaa waxa kale laga yaabaa shirkada dawladda wadanka Shiinaha laga leeyahay in iska soo kareysteen oo Ukraine wax geenayeen waa dhici kartaa because maxaa yeelay maraakiibta caalamka waa la kareystaa mararka qaar marka si u badbaado oo baddaasna u marto in calanka wadanka Shiinaha ay suurta dhici karto maadaama shirkada ay wadanka Shiinuhu ay leeyihiin taas waa dhici kartaa laakiin dawladda wadanka Ruushka ilaa hadda faahfaahin dheeraad ah lagama bixin arrintaas laakiin markabkaas waa gubanaya sida la leeyahay maxaa yeelay cid walba oo dekedaha wadanka Ukraine ku socota waa in ay qaadataa amarka ciidanka militariga wadanka Ruushka hadda waxa maraakiibta reer galbeedka hubka geen jiray waa hore joojiyeen maxaa yeelay waa la ugaarsanaya hadda hubka Poland iyo wadamo kale iyo albaaba kale oo dhulka hoostiis iyo wax noocaas oo kale taa ayaa la soo marinaya dhinaca wadanka Ukraine ee hubka la siinayo oo wadamada reer galbeedka inta badan ka imaanay walow hadda aad u yaraadaan hubka reer galbeedka ka imaanaya buu iska yaraaday maxaa yeelay iyagii ayaaba yaa nafsi taagan marka arintaas waxa la leeyahay waa inteeda laakiin ma aha wax saameyn doona xiriirka dawladda wadanka Ruushka iyo xiriirka wadanka Shiinaha saameyn doona ma waa khalad dhacay dabcan haddii dhacayna waa laga xaalan doonaa labada dhinac intii khalad kale laakiin Ruushka iyo Shiinaha marxalad hadda la joogo markab la weeraray iyo markabkuna de markab military ma aha dabcan waa markab Ukraine ku sii jeedo shidaal wax nooca ayuu waday marka taas bay u badan tahay waxaag qodobka kale maamulka Soomaaliland ba waxay leeyihiin ilaahayo dhulkan la gooy maxaan u jeedaa ninka la yiraahdo Isxaaq madaxweynaha sheegta ee dhulka muslimiinta xooga ku jooga Burcada ee kooxda shuftada madaxweynaha u ah ayaa waxa uu markaasi safiir lagu sheegay nin la yiraahdo Maxamed Xaaji magaca iga dar Xaaji iyo Maxamed iyo waxaan la yaabay ba waxaan la soo dhigay sida Al Jazeera ay daabacayso isaga oo markaasi warqadii agoonsiga markaasi ka gudoomaya laakiin waxyaabo la isweydiinaya yaabkii ama kaagal ayaa waxa kamid ah hadda dunidu dagaal ayaa socdo oo xaalad halis ah oo qadaar ayaa lagu jira bal iska daaya wadamadii Carbeed oo dhaqaale iyo hub ee kontankii sano la soo dhaafay hubkii dunidu ugu tirada badnaa iibsanayay ayaa hadda qaatib billaahi ku nool oo amnigood inta u baqeen ayaa wadamo kale oo xoog leh oo waaweyn u yeeranaya waxa isweydiinaya haddii berri uu dagaal dhaco dabcan adoo fahan dadka weeraraya Saudi Arabia iyo Bahrain iyo Kuwait weeraraya sababta loo weerarayo waa maxay Israa'iil iyo Mareykanka ayaa meeshaas saldhigyo military kule oo xiriir kule way waxaag isu tagi Imaaraadka Carabta in Israa'iil saldhig wadanka la yiraahdo maamulka gobolada waqooyi galbeed ee Soomaaliya in Israa'iil ay saldhig ku leedahay anagu shaki ma jiro maxaa yeelay saldhigyada Imaaraadka Carabta ay meeshaas ka dhiseen horta mid ogaada Imaaraadka Carabta iyo Israa'iil iyo Ethiopia waa shabakad socoto oo macruuf ah oo la yaqaan way bal Israa'iil waxay taa keentay qorshihii Ethiopia Soomaaliya ku qabsanayd qayb kamid ayay keentay maxaa yeelay oromadan yaacaysa laga soo bilaabo jaale ilaa Boosaaso yaacaysa iskama socdaan waxaan qorshe ku socdaan xeeb bay ku socdaan gabdho yar iyo wiilal yar baa la soo dhoobaya bishii markay ugu yartay 2003 oo Ethiopiana ayaa soo gara laga soo bilaabo wajaale ilaa iyo hadii laba ku rooyahay magaalada Boosaaso cid la hadashaanaana ma jirto maxay doonayaan lama yaqaano qaar waaba ku guursaday oo ku dhaldhalay hatta af Soomaaliga adiga ka badinaya
sidaas maxay tahay marka waa wixii ay Israa'iil Gaza ku qabsatay Gaza ma ahane dhulka reer Falastiin ay ku qabsatay weeye marka laga soo bilaabo 1900 iyo magaranaysa 17 ilaa 1910 ba ka soo qaad sidaanay meelaha looga keenay jiray dalxiis ahaan way imaan jireen in adeero bay lahaayeen marka dambe waxay sameeyeen waa la arkay marka يعني برنامج دير وإسرائيل دجيسي وسيدي دولك الصومالية لولا وريق لها إثيوبيا لولا وريجي لها كونا كينيا أو قادات مشروعي أها أيام مين حساسية مريا هلك دتك الصومالية دا اسكدوا هايهين على أي حال هدي مركا حد برين دقال دعو أو واتقانا دي هلك نحوت تجيه فردية أو إسرائيل أي سلقيدا هورت مكي علين كرتها مركو غوريس إسرائيل قانون ومهو قانسنتو شرعنا مبقى بتبا عالمك oo dhan bay ka sareysaa waxa la yiraahdaa sulda fooq qaanuun baa la yiraahdaa marka saldhigaas imaaraadka xataa hadii ciidamada ka kiciso ama ay diyaarada ka kiciso midida kartaa tan kale maamulkan yani caloosh u shaqeystaha ay Hargeysa joogana si cad wuxuu leeyahay Iiraan lama tusayo way gardaran tahay mabaqar waxa hatta ay ka xishoonayaan dawladihi nacamlayaasha ahaa ee Israa'iil adoomada u ahaa ee Sacuudi Carabiga iyo Urdun iyo Masar ay ka xishoonayaan ayay ku dhawaaqayaan maleeshiyadan gooni u goosatada ay Hargeysa joogta bar hadii saaka 5 diyaaradood lagu soo weeraro oo gantaalo lagu soo tuuro oo Hargeysa iyo Berbera iyo Burco daakum laga dhigo Israa'iil miyay ku difaacaysaa maxaa adiga Israa'iil ka galay hadii se adiga Ilaahay culoobaysan maxaad waagi bal horta ay xataa wuxuu u yar muuqdo maxaad u aqoonsan maxay ku aqoonsan weysay maxaa hadii hadda saaka lagu soo weeraro birri hadii weerar lagu soo qaado isma difaaci kartid shacab yaro masaakiin wax kale iska daayay quraac qadaan in heli kariin baad hogaamiye u tahay markii hore ayaan darnaayeen dhinaca kale يعني gantaladii aad aragtay ee Israa'iil ka qaliisiyay ee caalamka rugmaya ayaa la isku weerari doonaa هدي حد كبس وقات هذا السعودي عربي الله ويرراي مالي الله كان إمارات سعودية كويت بحرين ديارات الدرون سالقوا ويرراي عنده ويرتين لما شيء هدي هذا الله كل أضيارات شم بقول أضيارات الدرون يصدر وقصوا ويررا أو مذاكر جيس لقى دقيو أو لقى دقيو ببرلا دقيو أو برلا دقيو أو مذا حتى يدا حارنت جورج مورغان يا أقولتي مورغان تكون جرتان للدقيو يا إيدين مكان يا إذا اندفاعية وإسرائيل محا قوسطها يا إسرائيل ليجل موف يعني راس كلسواية وانمن برعة وميلكو حبسدوية marka hadda aad Israa'iil ba safiirkeedii Hargeysa keenaya kaygiina Qudus buu jooga Maxamed Xaaji baa iga daran la'ana Allahi alaykum calada kuga dhacday wax kale ku dhiman ayaa bijirina madax Soomaaliyeed wadata iga daran dhulka kula go'awnuhu ku istaag Allah wuxuu damiir darana yani qaar wax koranayaan maxaa ka macnaa sootay Turkiga wax u joogaan sootay Masar wax u joogaan war adiga Masar wax kaama qodan Soomaali baan ahay oo hadii Arab iyo Cajab oo dhan diinta Islaamka ka baxaan حكيامن بإذن الله كما بحيو مسلم بنهانيا إسلام كان هدو قداري حشالي لما بقى قداره هدو معايا أنا مسلم بنهانيا إلا من يوم القيامة بإذن الله تعالى بحاجة قصية عرب مسلمتي عرب كفر ذيو عجبكم وحبيجا ما قصيان لكن حتى نمان كاس بيرجي يجي إسرائيل أي مامورك شفت ذا أي شيء جرين حتى حالكم سيدان ما هاين حجابا يعني حد وحلا مرة يعني حركة فرح لو وضع قشر هذا يرتام يعني وذلك غزوها كل دعاية لبنان وحلا قصة مينيا الدون كيف هاد وذر إيران وحا كدعاية حكومة دا مركو حلا يابي إنما كعلو شقيسياش وانا لا أقوصي ورا أقوصي هورتو محمد عن اللي وانا لا أقوصي دايما حيث والميوصل إلهي مسلم كادقين وان صومالي كادقين وان بدلو قصين وان لغو نولين وحكامة قمحيهين إن إسرائيل يوغان undabn عملي النغطو ومحا كاسو قليا مدك الإسلام ماذا الشيقين يسا محيتهاي مركو حلا ليهاي كل دجال صوص عضب وح إيمان دونتا وحل يردا وسيات اليوم يقول هذا الكيك ما أنت تضبطنا لقيا مقاركين الداودان سحنين واركام والأدوك وبلارية هي وح إلهي العنضي أفر لو أعطيك صفات هذا كتابك كوي المحيد البضي بدك المرحلة ده هديبها يلي سام محا مرحلة ده إذا نحق ليه محا فرها إيران إذا نقليه بالضرورة اسكت عليه كرتان هدي هذا الشنطة أو هرجيس للجبو أو بربر للجبو أو برع للجبو أو ديارة الضرورة زول إذا كجنيكو حالك إنه محوي هاي ما إذا لا تهاي شفت دينا إذا دفاعيسو شفت دينا هدي واحد دفاعيسو كوي يدو عابدي أو إمارات أي كم يدي دفاعي لهاي مركب واحد كود ده وفهنسنا هي إله ممكن يلقوي إلهي نويدين عرض إلهي نمر يوم من الأيام أسور صندونا أدينكو كبنا الله دينا يمنك سو عرري الله tan oo kale adduunka midnoo dambeysay nimankaas sharci ma qoraan xeer ma qoraan adinka hadda soo dhaweystay saldhigaas imaaraadku waa horeba iyagu sameeyay ha ala calina markay gacanta idin gaarto ha ala calina hadda maanta dad badan ba idin la talin xira waana la ku fanaaniin isku sheegay la'ana allah alayhi bika ugu horeeyo maxaa codna aqoonsi codad maxaa keenay
adiga Soomaali baa tahay Ilaahay baa ku ogolay Muslim baa tahay aqoonsiga kala u baahan tahay maxay tahay mid kale aqoonsiga wuxuu ku soo kordhinaya ma beero ku siinaya ma lacag buu ku siinaya intee dalba la aqoonsaday gaajo dhiminaysa maanta koonfurta Suudaan maxay qabatay caalamul islaami maanta iyo Afrika inta wadan baa la aqoonsiiyay maxaa loo qabtay war qofku wuxuu isagu qabsadaa lagu qiimeeyaa calooshu shaqaysanimadan iyo gudnimadan ma aqaan meel ay idin galeen laakiin mar dhow ayaan is wareysan doonaa markay berberiya Hargeysa ay ololaan oo aerobooradiin iyo dekedaas iyo shidaalkiina ololo ayana wax isku weydiin doonaa waxa maanta Cabdiraxmaan Shaydaan iyo xukuumaddiisa iyo saaxiibada imaanta wadaan maalintaas aan is weydiin doonaa fantadiru inna muntadiruun aad u maasantiin waxa dhinaca kale dhaxalsugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa qarka u saaran in saldhig la geliyo oo waliba xabsiga la dhigo yaa xiraya qolooyin inta badan injooya ah oo aniga horta waxa lagu haystaa Faransiiska dawladda wadanka Faransiiska garsoorkeeda ayaa dacwad badan ka gudbiyay waxaana loo haystaa dilkii foolxumada ahaa ee Jamal Khashoggi u geystay waa lagu soo laba kacaleeyay marka maxkamadda ku yaala wadanka Faransiiska ayaa dacwad ka gudbiyay iyo qareenada dacwad soo gudbiyay marka waxa la leeyahay waxa loo haystaa dilkii Jamal Khashoggi laakiin Jamal Khashoggi Ilaahay u naxariistay 2018 ayaa la dilay waa la dubtay dilid ma oran karnaa sirdoonkii dawladda wadanka Mareykanka aba sheegay in Mohammed bin Salman uu dilay marka maxaa hadda Mohammed bin Salman dawladda wadanka Faransiisku ay ugu hanjabayso oo uu leedahay dambigaas baa lagu helay hadii wadanku yimid hal xiro waxa laga wada garsoorka Faransiiska dabcan wadamada reer galbeedku garsoorkooda waa ixtiraamaan hadii garsoorka Faransiisku uu go'aan ku gaaro Mohammed bin Salman inuu hawada Faransiiskana uu mari karin tan uu mari karin haduu wadanka yimaadana xabsi in la dhigay tahay waa suuragal laakiin maxaa xisda laga doonay 2018 inta sano laga joogaa ilaa 7 sano ku dhawaad marka laga joogaaye maxaa hadda maxaa lagu falaya waxa la leeyahay lacag laga rabaa waa propagandada kiiska la cusboonaysiinaya warbaahinta caalamka la gelinaya waa dabadeedna waxa rabtana ka daayo bixi hada lacag waxa halko bilyan oo dollar soo tur maxaa yeelay dawladda wadanka Faransiiska lacagii ay ka dhuuqi jirtay bay weeday waana ku ceeboween galbeedka oo dhan baan ku ceeboway because nimanka Carbeed ee caloosh u shaqeeyayaasha ah jawaasiis ah xijaabada wad markii hore xoolo riman bay ahayn Faransiiska ka qaadi jiray Mareykanka hadda marka Mareykanka oo kaliya ayay wax u ogol yihiin nimankii kale waxay leeyihiin waxba idin ma hayna iyo annaga baahin wax noocaas marka waxa u badan tahay baa la leeyahay garsoorka Faransiisku arinta marka muhiimadeedu من إن جمال كشوقي iyo noloshiis iyo cadaalad in la raadinayma Faransiiska isaga hadda wadankiisu waxa laga soo ceyrinaya dadka caanka ah ee dadka reer Falastiin ay qasdi lagu dhibaateeyo taageera hadda Faransiiska laga soo ceyrinaya marka muhiimadu ma aha in xuquuq iyo islaam iyo muslimi insaaniyad ma aha marka waxa rabaa in la jiljilal raba boqortooyada la yiraahdo Emmanuel Macron yiraahdo waa ka hor istaagaya balaayin dollar meel ku soo sheego lacag soo shub lacag baa loo baahan yahay iyo shidaal raqiis oo garanaysa 200 milyan ilaa 50 milyan oo fuusto shidaal keen oo bilaash nasiib baad way sida la leeyahay marka mooye Jamal Khashoggi markii geeridiis iyo wixii cusbaayeen ba iyagu Mohammed bin Salman ay daafaci jireen marka maanta maxaa cusub iska garo lacag baa laga rabaa waa hagaag warbixin xasaasi ah oo ay soo saareen sirdoonka dawladda wadanka sirdoonka maamulka shuftada ah waliba sarkaal sare oo hore ugu tirsanaan jiray ayaa arintan ka hadlaya marka wuxuu leeyahay sarkaalkaas wuxuu leeyahay maqaal dheer ayuu qoray waxaana la yiraahdaa Tamir Hayman ayaa la yiraahdaa waxa kale warbixintan daabacaya wargeyska la yiraahdo Haratis ee ka soo baxa dhulka xoog lagu haysto waxa kale daabacaya jariirada la yiraahdo The Middle East ayna way daabacaysaa ninka markuu wuxuu leeyahay Mareykanka iyo Israa'iil kadaabi waa uu leeyahay wax iska bedelay oo barnaamijka nuclear-ka wadanka Iran ma jiraan ha ku daalin ayay leeyahay marka wuxuu leeyahay xataa 2025 weerarkii lagu qaaday barnaamijka nuclear-ka Iran wuxuu leeyahay ninkan sarkaal sare oo mukhaabaraadka shuftada ka tirsan waliba qaybta military ayuu ka tirsanaa hadda laakiin ma ahad dhinaca amniga ah oo la yiraahdo Institute for National Security Studies la yiraahdo oo kamid ah hay'adaha ugu muhiimsan maamulka burcada ayuu hadda ka tirsan yahay marka wuxuu leeyahay waxaan Netanyahu iyo Donald Trump ay noo sheegayaan oo ah nuclear-ka Iran baa la burburiyay nuclear-ka waa deynay 2025 bishii June laga soo bilaabo ilaa hadda kadaabi waa uu leeyahay bal Iran waa laba jibaartay 30 jibaartay buu ku leeyahay shaki igagama jir ayuu leeyahay in dawladda wadanka Iran ay nuclear buuxa haysato bal aad iyo aad ayay gul ugu gaartay ayuu leeyahay marka labada dhinac ama labada weerarkii February 8deedii 28keedii 2026 la qaaday iyo kii bishii June 1deedii la qaaday labadaba fashil waa uu leeyahay wax iska bedelay oo hubka nuclear-ka iyo barnaamijka nuclear-ka wadanka Iran ku saabsan waxba kama jiraan ayuu leeyahay sidaas daraadeed
ninkan wuxuu leeyahay marka dagaalkii 12 maalin ahaa ee lagu qaaday 2025 wuxuu ahaa buu leeyahay mid kamid ah guuldarooyinkii ugu xumaa khasaaro mooye wax faa'iido ah oo Mareykanka ugu soo hooyaday male waxaaba la qaatay buu leeyahay in lagu laabto heshiiskii 2015 ee quwadaha shanta dal ah veto power kale iyo dawladda wadanka Jarmalka 5+1 ayaa la isku yiraahdaa kuwaas in la qaatay buu leeyahay waxa kale uu sheegayaa weerar kasta oo degdeg ah oo Iran lagu qaadana waxa uu dhalin karaa buu leeyahay balaayo iyo wax aan la filan waxa uu Iran ku tilmaamayaa sidoo leeyahay waa god baxal galeena ah oo masaska kuwa uga halista badan iyo habarduga kuwa uga halista badan aad ku ogtahay ayadoo oo mugdi tahay in madax lagu geliyo wax u dhigmo way ayuu leeyahay marka waxaan Iran ba wax ka burburinayo nuclearka Iran ba burburinay waxa kama jiraan buu leeyahay inta aan helayo xoga ah in la burburiyo iska daaya xitaa haduu dagaalka 1 milyan oo sano u socdo wuxuu leeyahay nuclearka Iran ay leedahay Mareykanka iyo Israa'iil ma gaari karaan sidaas daraaddeed markuu leeyahay waa kadaabin buu leeyahay waxayna doonayaan buu leeyahay in ay been noo sheegaan wax badan baan la soconaa waxaas waxba kama jiraan taa bedelkeedu wuxuu leeyahay 2023 ilaa 2024 Iran waxay gacanta ku dhigtay dhammaan xogaha muhiimka ah ee goobta la yiraahdo Demonis nuclearka xogaga burcada ah uu yaalo halkaas wuxuu leeyahay xoga cajiib ay ka qabatay 2023 ilaa 2024 xogta ay ka heshay buu leeyahay halkaas xogtaas waxa aruuriyeen buu leeyahay laba qolo aruurisay Hezbollah iyo Hamas ayaa xogtaas aruurisay waxaan u leeyahay budget aad u tiro badan waa lagu bixiyay hubka